kulanti wacan daawadayaal soo dhawaada. Suuragal ma tahay in aad u safarto magaalo aadan garanayn magaceeda, dhanka ay ka jirto iyo weliba masaafada ay ku jirto, adigoo ruux kale aan isku halaynayn? Dabcan jawaabtaadu way iska caddahay. Suurtagalna ma noqon karto inaad aaddo meel aad rabto adigoo aanan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale, safar kooban oo saacado ama daqiiqado uun qaadanayo. Haddii uusan suuragal ahayn, qorshe la'aan maxaa u malaynaysaa safarka nolosha oo idil? Nolosha waa safar u baahan qorsheyn iyo in loo sameeyo yool ay hiigsato oo ay ku dadaasho xaqiijintiisa iyadoo raacayso qorshe ay u degtay. Dabcan jawaabtaadu way iska caddahay. Suuragalna ma noqon karto inaad aaddo meel aad rabto adigoo aanan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale, safar kooban oo saacado ama daqiiqado uun qaadanayo. Haddii uusan suuragal ahayn, qorshe la'aan maxaa u malaynaysaa safarka nolosha oo idil? Noloshu waa safar u baahan qorsheyn iyo in loo sameeyo yool ay hiigsato oo ay ku dadaasho xaqiijintiisa iyadoo raacaysa qorshe ay u degsan tahay. Dadka nolosha ku guulaystay waa dadka leh yool ay hiigsadaan, isla markaana u dejiyay qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen hiigsigooda. Waxaa jira sidoo kale qof walba inuu xambaarsan yahay hadaf iyo yool kale oo uu hiigsanayo, isla markaana ka damacsan yahay noloshiisa inta uu adduunka dul joogo. Balse dadka badigood hamigooda waxa ay ku keedsadaan uurkooda iyagoo aanan samayn wax isku day ah. Markii uu ruuxa sidaa noqdana, hamigiisa oo idil wuxuu isku beddelayaa hawo iyo khiyaali aan soo dhaafin uurkiisa. Isweydii, maxaa ka damacsan tahay noloshaada dhow ama tan fog? Waa khasab, qofka bini'aadamka ah mar walba wax buu hiigsanayaa, isla markaana jecel yahay in uu gaaro, balse waxaa kala duwan sida ay u kala qaabilaan ka gungaaridda waxyaabaha ay hiigsanayaan. Dadka badankood ma lahan qorshe ay u dejiyeen ka miro dhalinta yoolka noloshooda. Waxa ay nolosha u qaabilaan habka ay iyada u soo qaabisho. Halkii ay nafta xukumi lahaayeen, ayaga ayay hoggaanka u haysaa. Taana waxa ay sababtaa inta badan in ay qiimo beesho nolosha qofka. Haddaba maxaa u diida dadka badigood qorshe u dejinta hadafka noloshooda? Waxyaalaha ka hortaga dadka badankood in ay qorsheeyaan noloshooda waa ay fara badan yihiin, hase yeeshee waxaan ka xusi karnaa qodobadan. 1. Cabsi ay ka qabaan guuldaro iyo fashil ku yimaada qorshaha ay degsadaan. 2. Liiditaan nafsadooda ay liidayaan iyagoo isku arko inaysan qorshe fulin karin. 3. Faham daro muhiimadda ay leedahay qorshe u dejinta hadafka nolosha. 4. Xishood iyo cabsi ay ka qabaan in ay bulshada la yaabto. Akhriste ama daawade, waa muhiim in uu ku cad yahay hadafka aad nolosha ka leedahay. Isweydii, maxaad u nooshahay? Waa maxay hadafka fog ee aad noloshaada ka damacsan tahay? Mar haddii aad jawaab u hesho su'aalahaas, waxaa kuu sahlanaan doonta qorshe u dejinta xaqiijinta hadafka noloshaada. Ugu dambeyntii, waxaan kugula dardaarmayaa nafsadaada inaad hagto oo aad qorshe u dejiso, waayo haddii aadan hagin, iyadoo hoggaanka kuu qaban doonto. Nafsadda haddii ay hoggaanka kuu qabato oo ay hawadeeda iska raacdana, waxaad halis u tahay halaag iyo khasaaro. Alleh ha inaga najeeyo. Dareenka nolosha, si aadan ugu dhicin, hag nafsadaada oo u yeel hadaf iyo yool ay hiigsato. Waad ku mahadsantahay daawadayaal, sida wanaagsan aad noogu xirantihiin aad noo daawataan. Waan idinkaga mahadcelinaynaa. Mahadsanidin.